waxay ahayd fursad aad iyo aad qaali u ah saddexda maalmood aan halkaan isugu nimid annagoo marka aan ka wada hadlaynay qorshaha bulshada rayidka ee ku aadan sidii kaalin ugu qaadan lahayd dowlad dhiska waxaan aad iyo aad u aaminsanahay roolka iyo doorka ay leedahay bulshada rayidka Soomaaliyeed ee ay ku leedahay dowlad dhiska Soomaaliya. doorkoodii waxqabadka lama qarin karayo, dhinac kasta wuu taabanayay, waxbarashadii uu taabanayay, caafimaadkii uu taabanayay, gargaarkii uu taabanayay, nabad dhiskii uu taabanayay, dowlad dhiskii uu taabanayay. intaasba mar kasta iyaga qayb ka ah. Evolution. waxaan aad iyo aad gabagabada usoo jeedinaa in maaragtaa dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, hay'adaha UN-ka, hay'adaha deeq-bixiyaasha, saaxiibada Soomaaliya dhammaanba inay gacan ku siiyaan bulshada rayidka meel kasta ay joogto sidii qorshahan ugu hirgeli lahaa, looga dhabeyn lahaa, u noqon lahayd qorshe markaa runtii suurtagal ka dhiga doorka bulshada rayidku ee kaga aadan geedi socodka dhismaha dowladnimada, nabadeynta, u gargaaridda arrimaha bini'aadanimada